السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبada halkan ku xiran ku soo dhawaada caalam dahsoon. haddii markaaga ku horeysan tahay halkan joogtid fadlan subscribe si ay ku soo gaaraan muuqaalada iyo barnaamijyada aan halkan u soo gelino maalinlaha. warbaahinta dunida ayuu haystaa waa mid ka mid ah dadka ugu saameynta badan dunida. waa bilyaneer 39 bilyan oo dollar ayuu haystaa balse hantidiisu wax saameyna kuma leh saameyntiisa iyo waliba awoodiisa. waa ninka raba inuu nolol ka suurtageliyo meera aysan nolol suurtagal ka ahayn. waa meeraha Mars oo haddii aad daqiiqado dul joogto aad neef la'aan noqonayso kadibna aad sikino u dhimanayso. balse ninka la yiraahdo Elon Musk wuxuu ku haminayaa inuu halkaas magaalo dhan ka dhiso. kani waa Elon Musk, waa 48 jir ku dhashay Pretoria, South Africa. waa South African, waa American, waana Canadian. yaraantiisii xilligii uu South Africa joogay waxa aad u dhibay carruurta ay isku fasalka ahaayeen iyagoo uu ku caayi jiray inuu ahaa cunuga waxba fahmin oo damiin ah. mar ayaa cusbitaal la dhigay kadib markii uu shoog ka qaaday aydii iyo aflagaadadii iskoolka loogu geysan jiray. markii uu 17 jir ahaa ayuu Canada aaday. wuxuu bilaabay jaamacadda Queen's University balse wuu ka wareegay oo wuxuu bilaabay jaamacadda Pennsylvania isagoo digrii dhaqaalaha ah ka qaatay, sidoo kale physics-ka iyo bachelor degree ka qaatay College Arts-ka iyo Science-ka. 1995 ayay isaga iyo walaalkii aasaasay shirkad la yiraahdo Zip2 oo ka shaqayn jirtay software-ka kaasoo markii dambe ay shirkadi ka iibsatay iyada oo siisay 340 milyan oo dollar. Elon Musk shirkado fara badan ayuu aasaasay isaga oo adeegsanaya lacagtii uu shirkadaas ka helay. shirkadaha uu aasaasay waxaa ka mid ah PayPal oo aad taqaanaan oo lacag oo ah company online ku shaqeeyo lacagta online lagu kala qaato. 2002 ayaa shirkadda eBay ka iibsatay PayPal iyada oo ku iibsatay lacag gaaraysa 1.5 bilyan oo dollar. waa halka ay ka bilaabatay fikradda Elon Musk ee ku aadan inuu mar uun cagta dhigi doono meeraha cas ee loo yaqaan Mars. waana markii uu aasaasay shirkadda hadal haynteedu badan tahay ee SpaceX, taasoo mishinkeeda iyo ujeedkeedu yahay inay meerahaas ka dejiso gaadiidkeeda cirka. habeen iyo maalinba wuxuu leerka ku hayaa oo ka shaqeynayaa sidii uu u hirgelin lahaa hankiisa inuu maalin uun dadka meerahaas u dalxiis geeyo. wuxuu maalkiisa oo dhan ku bixiyay shirkadda SpaceX. dhowr mar oo hore ayay shirkadihiisa SpaceX iyo Tesla oo ka shaqeysa sameynta baabuurta electric-ga ku sigteen inay kacaan, balse maalgelin xooggan iyo heshiisyo ay la galeen hay'adda dowladda Mareykanka ee NASA ayaa badbaadisay. haatan SpaceX waxay qorsheynaysaa in 2022 ay dayuurad cireedkii ugu horeysay u dirto meeraha Mars, waxaana xigi doona in 2024 ay meerahaas u dirto dad bini aadam ah. wuxuuse noqon doonaa howlgal halistiisa leh, yacni dadka meeraha Mars loo dirayo waxay saxiixi doonaan inay noloshooda waayaan, waxaana ay aqbali doonaan inay u dhaxayn doonaan labada daarood. safarkuna waa haldo, mar haddii aad tagtid dib laguma soo celinayo. ilaa 100 qof ayaa meerahaas laga dejin doonaa sanadka 2024. waa sida uu qorshuhu yahay, balse lama oga in xaalku isbedelayo maadaama dad fara badan ay arrintaas riyo ku tilmaamayaan. macquul ma tahay in meerahaas bini aadamku tago? run ahaantii waa adag tahay maxaa yeelay bini aadamku dhulkan ayuu eebbahay u dooray. balse haddii aynu isku dayno inaynu nolol macmal ah ka suurtagelino meeraha Mars waa macquul, balse way adag tahay waayo meeraha Mars wax neef ma leh, yacni sikuno gudahooda ayaad ku dhimanaysaa haddii aadan oxygen ama suudka samada ee loo yaqaan space suudka aadan sidan. sidoo kale wax biyo ma leh meeraha Mars, cunto iyada warkeeda haba sheegin. waxaa intaas ka daran meeraha Mars aad ayuu u qabow yahay, waxaadna u baahan tahay jaakada samada si aad u noolaato. arrinta xiisaha leh ayaa ah miisaankaaga wuu isbedelayaa. haddii aad 50 kiilo ahayd markaad Mars tagto waxaad noqonaysaa qiyaastii 25 kiilo, taasoo micnaheedu tahay inaad kor u boodboodi kadib. Elon Musk wuxuu aaminsan yahay in biyaha ay ka sameyn doonaan barafka iyo macdanta kale ee meeraha Mars. sidoo kale carbon dioxide ayay u bedeli doonaan oxygen, taasoo sahlaysa inay neefsadaan. ciidda meerahan ayay ku dhisi doonaan xarun ay shirkadaas meelaha ku yeelato. sidoo kale dadku cunno ku filan ayay qaadan doonaan iyagoo dhulka ka qaadan doona maadaama cunno dabiici ah aysan ka bixin meeraha Mars. radiation-ka iyo sunta meeraha Mars ayaa khatarteeda leh, waana sababta loo qorsheynayo in dhulka hoostiisa daaro looga dhiso dadka halkaa ku noolaan doona.
ma fududa marka la fiiriyo in Elon uu doonayo in sanadka 2050 uu 1 milyan oo qof geeyo meerahaas halkaas oo qorsheynayo inuu magaalo dhan ka hirgeliyo safarka meeraha ayaa qaadan doona muddo 100 beri ku siman waa muddo aad u dheer dad fara badan ayaa isdiiwaan geliyay inta aan dadka la aqbalin waxaa loo sameeyay tababar iyo waliba in la baro qaabka ay ugu noolaan lahaayeen meerahan halista badan balse lama hubo in riyadaas run noqon doonto oo alle ayaa mar walba qorshihiisu jiri doonaa waxyaabaha aadka loo hadal hayo ayaa waxay yihiin yuu noqon doonaa qofka ugu horeeya ee ku dhasha meeraha Mars ama kan ku dhinta ama labada ugu horeysa ee meerahaas arooskoodu ka dhaco adigu bal fikirkaaga ka soo dhiibo sida aad u aragtid meerahan la doonayo in la tago macquul ma tahay ama ma kula tahay adiga macquul in meerahan uu bini'aadam ku tagi karo haddiise la tagi karo adigu ma jeclaan lahayd inaad meerahaas tagtid